ka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa waxa uu galay marxalad cusub oo ay sii siyaadayso ku tiirsanaantooda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee drone-ska iyadoo labada dhinacba ay sii xoojinayaan weerarada masaafada fogfog ah ee la hago islamarkaana uu dardargalay tartanka lagu horumarinayo hubkan kaasi oo noqday mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee go'aamiyay natiijada dagaaladan. Arrintanina waxay barbar socotaa dadaalada diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee lagu doonayo in dib loogu soo nooleeyo rajada laga qabo in la gaaro xal siyaasadeed oo colaadan lagu soo gabagabeeyo. Furimaha dagaalka ee Zaporizhzhia ee koonfurta Ukraine ayaa waxaa si aad ah looga isticmaalayaa ama guud ahaan dagaalkan si aad loogu isticmaalayaa weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn lagu fuliyo iyadoo cutubiyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay sii wadaan howlgaladooda ku aadan sahminta la socodka bartilmaameedyada iyo fulinta weeraro sax ah xilli saacadaha hore ee aroortii ay noqdeen kuwa ugu habboon ee howlgalada la fuliyo dhawaanahan kadib markii ay yaraadeen mawjadaha weerarada habeenkii lagu fulin jiray diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Xubno ka tirsan ama ka mid ah cutubiyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ayaa u sheegay Al Jazeera in ciidamadooda ay lumiyeen mid ka mid ah diyaaradahooda kadib markii ay soo rideen Ruushka iyagoo gudanaysa howlgallo ka socday deegaanada Ruushka. Waxaana carabka ku adkeeyeen in difaacyada Ruushku ay hadda qoondeeyeen awood badan oo ilaalinta baqarada rasaasta iyo goobaha ay ciidamada ku aruursan yihiin si loo difaaco weerarada cirka ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lagu soo weerarayo. Cutubku waxa uu si degdeg ah u diray diyaarad cusub oo si ay u soo dhamaystirto howlgalka qabyada ahaa taasi oo ka turjumaysa nooca dagaalka hadda socda ee soo taraya kuna tiirsan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn adeegsiga gaar ahaan labada dhinacba ha noqoto sahminta hagida madaafiicda ama weeraro toos ah oo lagu geysto diyaaradahan. Intii uu socday dagaalka warshadaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn soo saaray Ukraine ayaa si weyn u ballaarmay iyadoo in ka badan 250 shirkadood ay ka shaqeynayaan waaxdan kuwaasi oo si madax bannaan ama iskaashi u leh dalalka xulafada sida boqortooyada Ingiriiska, Kanada, Norway, Jarmalka iyo weliba Denmark. Diyaaradaha iskoodis wada ee Ukraine waxay isugu jiraan kuwa ismiidaamiyo oo nooca loo yaqaano VPF-ka inta badan loo adeegsado weerarada lagu qaado askarta gaadiidka ee dhufaysyada dhowdhow waxaana diyaaradaha sahminta ee bixiya xog sax ah ay isticmaala ciidamada dhulka iyo diyaaradaha culus ee wax duqeeya sida Drone iyo sidoo kale Vampire kuwaasi oo qaadi kara madaafiic iyo walxa culus. Waxaa sidoo kale jira diyaarado kale oo baala leh kuwaasi oo gaari kara masaafo ku dhow 2,000 oo kiiloomitir kuwaasi oo loo adeegsaday weeraro lagu qaaday gudaha Ruushka oo lagu tijaabiyey. Waxaana diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee iskoodis wada isna miidaamiya ama sahminta sameeya ay noqonayaan gaashaanka dagaalkan ay labada dhinacba u adeegsanayaan. Askarta Ukraine ayaa waxay sheegayaan diyaaradaha culus ee wax duqeeya gaar ahaan drone aysan ku koobnayn oo kaliya qaadista hubka balse ay sidoo kale gudaha furimaha dagaalka u gudbin karaan diyaaradaha si ay u fuliyaan howlgallo degdeg ah. Waxaana intaasi ay ku dareen saxnaanta ay ku dhacaan bartilmaameedyada ay yaraynayso qaladaadka ilaa qiyaastii 1 mitir taasi oo sida ay sheegeen ka dhigaysa kuwo ka waxtar badan madaafiicda caadiga ah ee loo adeegsado howlgallada badan. Militariga Ukraine ayaana waxa uu aaminsan yahay in kordhinta ku tiirsanaanta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay gacan ka geysatay dhimista khasaaraha ciidamadooda iyo buuxinta qayb ka mid ah farqiga tirada ee u dhexeeya iyaga iyo ciidamada Ruushka. Waxaana door muhiim ah ay ku leeyihiin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine adeegsanayso in la daaliyo ciidamada Ruushka ee dagaalka kula jira. Si kastaba waxay qirayaan waxtarka hubkan uu hoos u dhaco marka cimiladu ay xumaato walow falanqeeyaashu ay rumaysan yihiin in tartankan joogtada ah ee labada dhinac ay ugu jiraan horumarinta hubkan uu sii dheereyn karo dagaalka ka soconaya ee qaaradda Yurub barigeeda. Dhanka siyaasadda ee colaadan la taliyaha aqalka Kremlinka Yuri Yushkov ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump intii lagu guda jiray wadahadal taleefanka uu la yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu soo jeediyeen gacan ka geystay helitaanka xal lagu soo afjaro dagaalkan. Waxaana sidoo kale uu xaqiijiyay in ergada Mareykanka Stephen Witkoff iyo Jared Kushner ay yihiin kuwo sii wada dadaaladooda isla markaana diyaar ay yihiin booqasho cusub oo ay ku tagaan Moscow. Yushkov waxa uu ku tilmaamay hadalkaasi inuu yahay mid wax ku ool ah oo wax dhisaya isagoo xuseen Moscow ay weli doorbidayso xal siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed oo ay tixgelinayso lagu soo afjaro colaadan isla markaana
inay noqdaan kuwo ilaalinaya dadaaladaasi mabaadi'da asaasiga ah ee ruushka. waxaana sidoo kale uu ku eedeeyay Ukraine iyo xulafada reer Yurub inay doonayaan inay sii dheereeyaan ama xoojiyaan dagaalka. Ukraine waxay kordhisay ku tiirsanaanta weerarada lagu beegsado xarumaha istiraatiijiga ah ee ruushka, gaar ahaan warshadaha sifaynta shidaalka, haamaha kaydka shidaalka iyo xarumaha warshadaha ay soo saara qaybaha gantaalada si ay dabcan sida ay sheegtay u yareyso qalabka iyo ciidamada marka loo eego ruushka marka ay wajahayso si ruushka uusan ugu dhiirin in dagaalkani uu sii wado. iyadoo afhayeenka madaxtooyada ruushka Dmitry Peskovna uu sheegay in xoojinta weerarada Ukraine marka loo eego aragtida ruushka ay ka turjumaysa khasaaraha ay kala kulmayaan furimaha dagaalka iyo dib u gurashada jiidaha hore. Kremlin-ka ayaana sidoo kale ku eedeeyay Mareykanka, Faransiiska, Jarmalka iyo Netherlands inay siinayaan Kiev taageero sirdoon si ay u gudbiyaan isku dhawaanshiyaha sawirada dayax-gacmeedyada ee ka caawinaya weeraro ay ka fuliyaan gudaha dhulka ruushka. waa tahay markan Tehraan ayaynu eegno. Tehraan oo ay ka soconayaan isku soo baxyada baroordiiqda ee hogaamiyihii hore ee dalkaasi oo lagu dilay weerarada Mareykanka iyo Israa'iil 28 Febraayo sanadkan ay ka geysteen halkaasi ayaa waxa ay bilowday in mid ka mid ah howlgaladii ballaarnaa isugu jira dejinta iyo quudinta dadka ay bilowdo. Mas-uuliyiinta Iiraan waxay qiyaasayeen inta u dhaxaysa 15 ilaa 20 milyan oo qof oo ka kala imaanaya Tehraan iyo daafaha dalka inay ka qayb gali doonaan munaasabadaha aaska. tan iyo jimcihii lasoo dhaafay magaalada waxaa lagu jiray heegan sare si loo maareeyo qulqulkaasi oo dad badan ay isugu yimaadeen. hay-adaha dowladda, dowladaha hoose, adeegyada gurmadka degdega ah iyo ururada iskaax u qabsama mutadawiciinta u howlgala ayaa isku dabariday qorshe qaran oo lagu xaqiijinayo in munaasabadu si habsami leh ay u dhacdo, iyadoo mas-uuliyiinta sidoo kale ay aaska usoo bandhigayaan inuu yahay astaan muujinaysa midnimada qaran kadib colaadii dhowaan. tirada badan ee dadka isugu soo baxay fagaarayaasha ayaa abuurtay caqabado waaweyn oo dhinaca saadka ah, gaar ahaan dhinacyada hoyga, cuntada, gaadiidka iyo sidoo kale adeegyada aasaasiga ah. sidaas darteedna Tehraan waxaa loo bedelay xarun howlgal oo ballaaran, iyadoo meelo badan oo caasimada ah laga dhisay hooyo ku meel gaar ah oo ka samaysan teendhooyin. waxaa la arkay diyaargarow loo sameeyey dejinta goobaha ku habboon malaayiinka dadka ah iyo sidoo kale in loo sameeyo goobo ay ka heli karaan cuntada si loo dejiyo goobo dadkan badan. dowladda hoose ee Tehraan ayaa la kaashatay hay-adaha dowladda, ururada diimeed ee kooxaha mutadawiciinta ah si darjinooyinka, iskuulada, masaajida, holalka ciyaaraha, goobaha barakeysan iyo goobaha kale ee dadweynaha loogu bedelo xarumo ku meel gaar ah oo hoy u noqda dadka kasoo qaybgalaya munaasabada aaska. waxaa kale oo magaalada oo dhan laga dhisay guryo waaweyn oo teendhooyin ka samaysan. Xamid Reza Qolamzadeh oo ah madaxa xarunta isgaarsiinta iyo arrimaha caalamiga ah ee dowladda hoose ee Tehraan ayaa sheegay in dowladda hoose ay qorsheynayso diyaarinta iyo qaybinta ku dhawaad 20 milyan oo cunto kulul ah oo muddo 3 maalmood ah. cuntooyin dheeraad ah waxaa sidoo kale bixinaya socdyada diimeed, hay-adaha samafalka, mutadawiciinta iyo hay-adaha kale ee dowladda. sida uu sheegay Qolamzadeh, waxaa la diyaariyey hoy ay degi karaan qiyaastii 4 milyan oo qof, inkastoo aan weli la buuxin dhammaan goobaha la diyaariyey. waxaana uu sharaxay in qiyaastii 3 meelood meel dadka ka qaybgalaya isku soo baxyada ay u baahan yihiin hoy ku meel gaar ah, halka kuwo kalena ay la degaan qaraabadooda magaalada, qaarkoodna ay qolal ka qabsanayaan hoteelada ama maalin kasta ay ka imaanayaan gobolada dhowdhow. gaadiidka dadweynaha ayaa sidoo kale la kulmaya baahiyo hore aan loo arag 30 saacadood ee ugu horreeyay munaasabadaha. mas-uuliyiintu waxa ay diiwaan geliyeen in ka badan 9 milyan oo safaro rakaab ah, kuwaasi oo ka qayb yihiin 5 milyan oo safar oo lagu galay tareenka dhulka hoostiisa mara ee Tehraan. imaashiyaha howlka weyn ee salaada magaalada ayaana maalintii labaad dhaafay 6 milyan oo qof kasoo qaybgalkeeda. qabanqaabiyaasha badankood waxay sheegeen in howlahooda lagu maalgeliyo tabarucaad shakhsiyadeed iyo sidoo kale deeqa dadweyne, halkii ay ka hadlahaayeen taageero toos ah oo dowladda uga timaada. Xaaji Bahdi oo ka mid ah mutadawiciinta maamula teendhooyinka dadka bixiya adeega teendhooyinka ayaa sharaxay in kooxdiisu ay ka kooban tahay jamaacada iyo mas-uuliyiinta masaajidka, kuwaasi oo shaqadooda ay ku maalgeliya deeqo islamarkaana aan si rasmi ahayn ula shaqeeya maamulka deegaanka si looga hortago ciriiriga loona hubiyo in sahaydu ay si hufan u gaarto dhammaan dadka. marka laga soo tago dadaalada mutadawiciinta, hay-adaha rasmiga ah ayaa waxay dhiseen adeegyo socod lagu bixiyo oo ay dowladdu maalgeliso, kuwaasi oo ka shaqeeya miisaaniyadaha sanadlaha ah
ee loo qoondeeyay munaasabadaha diimeed taasi u saamaxaysa inay bixiyaan adeegyo waaweyn oo si wanaagsan loo abaabulay. Qaar ka mid ah xarumaha adeega ayaa sidoo kale sameeyay hooy teendhooyin ah si loo daryeelo carruurta, waalidiintuna ay u helaan meel ammaan ah oo ay uga tagaan carruurta yaryar marka ay ka qaybgalayaan munaasabadaha aaska. Goobahaasi oo ku yaala meelo harsan islamarkaana hawo fudud leh kuwaasi oo carruurtu ay goobo ku cayaaraan ay ku yaalaan. Mutadawiciinta qaarkood oo bulshada ka yimid ayaan xuseen adeegyada kale ay ka mid yihiin qaarkood barkadaha dabaasha dadweynaha oo laga bixiyo adeegyo qubays oo lacag la-aan ah, in dad degan magaalada guryahooda ay u fureen dadka ka yimid meelaha fogfog, iyo sidoo kale intaasi ay ka turjumaysa dareen ballaaran oo isku duubnida bulshada ka dhaxaysa, gaar ahaan kuwa kasoo qaybgalaya meelaha fogfog ka imaanaya sida loo qaabilayo dadkan doonaya inay helaan hoy gaar ah. Hoteelada Tehran ayaa waxa ay bixiyeen qiimo dhimis weyn iyagoona ka samaysan kara qolal ay degaan halkaasi inay ka qabsadaan. Maxamed Cali Faraqmeer oo ah gudoomiyaha ururka hoteelada ee Tehran ayaa waxa uu sheegay in qiyaastii 13,000 oo sariirood oo hoteelada ah in la diyaariyay islamarkaana dadka meelaha fogfog ka yimid ay ka heli karaan qiimo dhimis 50%. Inkastoo ay jiraan fursado badan oo hoyga ah, haddana caqabadaha dhinaca saadka ayaa weli ah kuwo waaweyn oo taagan, iyadoo munaasabaduhu ay sii socdaan oo gudbayaan magaalooyinka Qom iyo Mashhad. Mas-uuliyiinta ayaa waxay wajahayaan imtixaano kale oo waaweyn oo ku saabsan sidii loo dejin lahaa malaayiinta qof ee la filayo inay halkaasi isugu yimaadaan maalmaha soo socda hoy ay ku sugnaadaan inta ay soo dhammaanayso barodiiqda iyo aaska munaasabadaha isugu jira. waa hagaag waxaa inoo soo socota warbixin ku saabsan Netanyahu oo baadigoob ugu jira fursad kale oo Trump uu ugala kulmo kadib shir madaxeedka Ankara ka dhici doona, isagoo doonaya in madmadowga soo kala dhex galay Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil, gaar ahaan Trump iyo Netanyahu meesha laga saaro. Wareegi doonaa ujeedka Netanyahu uu damacsan yahay waxa uu doonayay Trump uu kala hadlo, balse marka hore aynu ku hakano qadar xayeysiin. Ku xirno HBN oo ka dhigo weelkaaga wararka. waa hagaag markan aynu u tallaabno warbixinta ama sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka caawa. Netanyahu ayaa waxa uu muuqdaa mid la tartamaya waqtiga si uu u hirgeliyo dalabkiisa ku aadan kulan uu la yeesho madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si uu dib ugu soo celiyo kalsoonidii labada dhinac ka dhaxaysay ee mugdiga hareeyay, islamarkaana ay la isku afgaran waayey arrimo ku saabsan Iiraan iyo sidoo kaleeto in arrinta gobolka sida loo maareynayo la isku fahmo. wargeyska dacwada xarinood ee Israa'iil ka soo baxay ayaa sheegay in xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu dagaal ugu jiro in toddobaadkan la qabto kulan uu la yeesho madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, islamarkaana Trump uu ka soo laabto shir madaxeedka isbahaysiga NATO kaasoo lagu qabanayo Turkiga, iyadoona Israa'iil ay isku dayeyso inay dib ula jaanqaado mowqifyada Washington ee dhowr arrimood oo gobolka quseeya inay ugu xooggan yihiin arrimaha Lubnaan iyo sidoo kale ku aadan Iiraan. wargeysku waxa uu sheegay in Netanyahu uu doonayo in kulankaasi loo qabto sida ugu dhaqsiyaha badan sababo dhowr ah awoodood, kuwa ugu muhiimsan ay yihiin soo celinta kalsoonidii dhaawacantay ee ka dhaxaysay isaga iyo Trump kadib dagaalkii Iiraan, iyo sidoo kale inuu soo bandhigo waqtigii ugu dambeysay ee sodonka Israa'iil ka hor inta aysan dib u bilaaban madaxaajoodada u dhexeeya Washington iyo Tehran, isagoo isku dayaya in saameyn uu ku yeesho mowqifka Mareykanka ee arrimahaasi ku aadan, gaar ahaan arrimaha Iiraan ka dhanka ah. wargeyskan Israa'iiliga waxa intaasi ku daray in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu sidoo kale damacsan yahay in uu kala hadlo Mareykanka ama Donald Trump arrinta caadiyeynta xiriirka dalal ka tirsan gobolka qaarkood, taasoo ka mid ah arrimaha siyaasadeed iyo kuwa gobolka ee labada dhinacba ay doonayaan inay wadajirka u horumariyaan, mowqifkaasna ay ka sameeyeen. sidoo kale waxa uu aaminsan yahay in kulan degdeg ah oo la yeesho Trump uu siin karo dardar siyaasadeed ka hor doorashooyinka soo socda ee Israa'iil. dhanka kalena idacada xarunooda ayaa soo xigtay saraakiil Israa'iiliyiin ah kuwaas oo sheegay in dad ku dhow Trump ay ka shaqeynayaan inay kiciyaan dareenka dhinaca Netanyahu iyo dibna ku aadan. Netanyahu wuu ogyahay cidda hogaamiyaha ah iyo wargeyska wareysi uu siiyey Fox News ku yidhi Netanyahu waxa uu ku beeniyey inay jirto xiisad kala dhaxaysa isaga iyo sidoo kale madaxweynaha Mareykanka, isagoo yidhi ma malaynayo inuu jiro dilaac ama qalqalgelin ku yimid xiriirka aan leeyahay Trump. waxaana intaasi ku daray madaxweyne Trump waa hogaamiyaha Mareykanka, waxaana sameeyaa waxa dan u ah dalkiisa, aniguna waxaan ahay hogaamiyaha Israa'iil, waxaana sameeyaa waxa danta u ah dalkayga. Trump ayaana hore uu sheegay warbaahinta Mareykanka gaar ahaan
shabakada wararka Axios ee Mareykanka laga leeyahay Netanyahu uu ka codsaday in kulan lagu qabto aqalka cad isla markaana kulankaasi uu dhici karo horaanta toddobaadka soo socda kadib shirka Ankara. Madaxweynaha Mareykanka ayaa carabka ku adkeeyay Netanyahu uu og yahay cidda hogaamiyaha dhabta ah isagoo xusay inay ka dhexeeyaan xiriir aad u weyn. Xiriirka Trump iyo Netanyahu ayaa bilihii lasoo dhaafay soo maray kala aragti doonaansho muuqda iyo mugdiyo hareeye gaar ahaan heshiiskii ugu dambeeyey ee u dhexeeyay Washington iyo Tehran iyo sidoo kale xaaladda sii cakirmaysa ee Lubnaan ku aadan. Dhanka kale wariyaha telefishinka 24 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa sheegay in dhowr mas'uul oo sare oo Israa'iiliyiin ah la filayo inay maalmaha iyo toddobaadyada soo socda u safraan Washington. Waxaana uu sharaxay wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Gideon Saar oo qiyaastii toddobaad iyo bar gudahood booqan doona Mareykanka si uu la kulmo dhiggiisa Mareykanka Marco Rubio. Halka qabanqaabada booqashada wasiirka difaaca Israa'iil Katz ee Washington ay marayso heerar horumarsan oo la diyaarinayo, iyadoona telefishinkaasi uu soo xigtay ilo xogaal ah oo sheegay in ikhtiyaarka military uu weli miiska saaran yahay isagoo tilmaamay booqashooyinka Saar iyo Katz in la baajin karo haddii si dhow loo qorsheeyo kulan kale oo dhex mara Netanyahu iyo Trump, arrintaasi oo Netanyahu uu raadinayo. waa hagaag wixii arrimahaasi kasoo kordha barnaamijyadeena dambe ayaad kala socon doontaan. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka maxaa cusub oo si toos aad uga daawanayseen HBN Online TV si aad u heshaan wararka, barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kusoo gudbino. Haddii aad ku cusub tihiin baraheena bulshada ee kala duwan ama aadan hore uga xirnina anooga soo biira. Tan iyo intaanu dib ugu kulmi doono barnaamij mid kale lacayna waxaan idin leenahay sidaas iyo nabad.